fideogan baa wuxuu haystaa internetka tartan ka dhacay China oo half marathon oo lacag aad yar iska yarna lagu bixinayay baa waxa dhacday ninkan Chinese-ka baa waxa loo maleynaa kuwa Afrikaamiinta inay lacag ka cuneen ka bacdi markaa marad qabatay ayagoo asaga ku dhahaya soo gudub ku guuleyso oo horteena mar oo tartanka guuleyso marka dawladda China hadda tartanka waxa ku wada baaritaan saddexaanina midna wuxuu dhashay Ethiopia labana waa Kenyan marka mid Kenyan ba taa wuxuu dhahay ninka saaxiibkii inuu ku guuleystaan oo tagalay haddana 6 saacadood ka bacdi hadalkii uu bedelo wuxuu dhahaa anigu pacemaker baa iska ordayay maahane tartanka ma qayb galeynba marka asaga u deysanay laakiin video ugu shactirada badnaa internetka haysta videogan way ila daawada. The Beijing half marathon has sparked a major controversy. Something very unusual happened at the event. Chinese runner He Jie won in